السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها ورسالت waxaan doonayaa inaan idin sheego sida maaragtay loo Allahu musta'an tusaale ahaan sida loo isticmaalo Meta oo marka WhatsApp ka tahay oo kale. Marka hadda kulli wadankii adigu kulli wadamada adduunka intooda badan Afrika iyo soo gaadhay soo kale waxay gaadhay wadamo badan marka hadda way soo socotaa kulli laakiin waxaan idin sheegayaa simple sida loo isticmaalo Meta halka hadda asxaabta ku dhufato waxaa ku dhufanaysaa aad baa taabanaysaa soo hadda markaa taabato haddaa taabato halka ugu sareeya asxaabta Meta AI soo tusaale ahaan waxaa hadda waxbaan qorayaa waxaan leeyahay give me halkan maadaama ay tahay give me 5 example 5 examples of the numbers ka dheh asxaabta give me 15 baa oranaya halkaas ama halka 15 iska dheh asxaabtay or 16 examples of the nouns and explain it. Okay, and explain basically. Okay, so inta marka ina u diro marka wuxuu sameeynaa asxaabta isagu uu arinkii ku kaasimaarta si degdeg u qoray. Okay, the city uu si faahfaahinaya. Okay, the teacher, the mountain, the book, doctor, animal, music, computer, restaurant, country, rival, school, family, tree, pen. وكاس حاطط ساس وفافين هالسكين يعني كوسيني هالكن مفصل إنجليشة ومركا دلينس إنجليش سكول ودكتو مركا مبهني إلى يعني وحصة القراء ومبهني إلى وحديه ومبهني إلى ما تقولني يعني مشروع كله هذيك كان محلات السالة ساسا كل ودينس in anything لكن وأنا مركا أت كوريسي ساعات يميتا هذه يميتا مركا كوريسي تسمي ينسى فيسبوك لو استعمال يا أصحابته السام وحلي حكر الدوية ما شفت هذا فيسبوك استعمال إنا ساسو كلا مركا باريس هالكا تكتا أصحابته هالكا ميتا كو سوق المي إذا ساسو كلا إذا ميتا هذا قرطو من فهدي أو إذا وتاسو كلا مركا هذا ميتا مسج سوري هذا مسج تقني إذا واتبتا سو كلا أصحابته السام مركا أنا هذا بيج بانكو جرا لكن قف الدنيا توس wuxuu u geli karaa isla message-ka oo toos uga helayo uma baahan ba asxaabta insha Allah 10ka message-kana marba iyadana tusaale guud ka siin doonaa laakiin almuhiim tan WhatsApp-ka soo loo isticmaalaa muhiima halka markaa ku qorto wixii kala raacay haday taariikh tahay history baad oranaysaa ya tell me the history ya ama waxa tell me the history of Somalia tell me the history of Somalia asxaabta Somalia not more than but also not more than 300 words ama 300 words يعني si aan inoogu badan de asxaabta way grade kan u qoraya grade 3 يعني ama classki yani dadka aan la hadlayo grade 3 baan ku oranayaa grade 3 English. Okay, intaasaan u diray asxaabta tell me the history of the Somalia not more than 300 grade 3 wakaas hada maanta ancient times long time history grade 3 baan ku yiri soo macallin luqaddu jilcinaya oo uu ka dhigay yani dad yar dad aan aqoon yani luqaddu way kala adagtay inta luqadii la jilcsan buu isticmaalaya si uu soo qoro taariikhda Soomaaliya iyadoo qodobaysan marka ancient times medieval periods colonial period independent civil war today Malta Somalian today Somalia is slowly rebuilding it became stronger the country has new government and money وكابا so waxaan aqoon lahayd ee howlkaaga bixinay adduunka asxaabta loo casriyay marka insha Allah Meta barta loo isticmaalo because Meta asxaabta waa muhiim iyaan hadaan ku furnayna don't worry dhowr cisho بعد update garee hadaan update gareyn update-kii ugu dambeeyay ku shub WhatsApp-kaaga hadaan ku jirin dad miinis waxa weeyaan WhatsApp-ka waxba ka khaldan soo asxaabta ma aha marka xaqiina maxamed yaasiin oo salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh saaxiibayaal ka faa'iideysta insha Allah 10 dambe waxaan ugu xidhi doonaa Meta Facebook iyo 10 kale dib siigo tutorial dhiga doonaa nagu soo biira asxaabta bots-ka loo sameeyay iyo ayad waxyaabaha dadka barnaada u baahan tahay bots
adiga ku hadlo kala magacaaga ku hadlo habeen iyo maalin aan seexana wax ku iibiya dad doonaysa insha allah 6 cisho 2 cisho kugu baranaa. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.